waxaana wanaagsan asxaabteena qaliga marka la barnaamijyadeena Excel ka caawa barnaamijkan waxaan idin tusay functionka la yiraahdo VLOOKUP-ka. VLOOKUP waxa weeyaan markaad maxaa la yiraahdaa tira ciida ka badan oo dad ama hawl ah aad ka dhex dooranaysid mid ka mid ah ii baad aad leedahay qaabkaas si sahlan uga soo dhex saari lahayd. Tusaale imika haddii aan hodan aan raadinayno hodan hadday ku dhex jirto 1 milyan oo qof aad laakiin haysid ID-gayga kaliya adaa ID-yada lagu siiyay waxa lagu yiri hodan minshaarkayga soo hel baa lagu yiri iyo waxa lagu siiyay data ciida ka badan oo 1 milyan iyo wax ka badan ayo ama 10 milyan buu noqon karaa adu markaa data ciida ka badan baa lagu siiyay dataas ka soo dhex saar hodan oo maxaa la yiraahdaa soo hel baa lagu yiri markaa qaabkeedu heli lahayd iyo aan halkan idinku tusay marka tusaale equal to baan leenahay mar kasta ood wax baadhaysid waa inaad wax haysatid waxaad ku baadhid waa inaad haysatid marka ID baa lagu siiyay ID-gaad ku baadhaysaa adiga dhigan tahay VLOOKUP ayaad leedahay VLOOKUP baad leedihiin ID baad haystaa marka ID-gaan click leenahay ID-ga markaan saas aan u taabano waxaan leenahay wuxuu na leeyahay table-keen kaaga soo dhex qaadaa xogta inaad raadinaysid table-keen ka soo qaadaa buu leeyahay table-kan weeyaan baad leedahay waa la wada dooranayaa saas la wada dooran kadib maxaad raadinaysaa buu ku leeyahay halkaas waxaad raadinaysid soo qaab buu ku leeyahay maxaa la yidhahdaa column index ku weydiinaya marka column-kee baan kaaga soo dhex qaadaa buu ku leeyahay ma kow waa imise column 1 2 3 4 minshaarkayga iisoo qaad baan leenahay 3 ku jiro column-ka saddexaad minshaarkayga ku jiro iisoo qaban leenahay waan tirsanaynaa 1 2 3 iisoo qaban leenahay kooma 3 baan leenahay kadib koomaan leenahay 2 kooma halkaas maaha waa kooma kaliya kadib eber yaan leenahay eber markaan dhahno false baa la yiraahdaa ama base kooma maxaa la eber markaad tidhaahdeen false baad leedihiin ama enter baad leedihiin labadaba ugu shaqeynaya marka kuwa kalena si uu u shaqeeyo sidaan hoos ugu soo jiidanaysa ilaa hoos aad ka imanaysaan kun waxaa la yiraahdaa wuxuu korka NA uu leeyahay maadaamaan rowgan la siman aanan ka bilaabin weeyaan kan ma jiro row jiro kan maaha tusaale kanna ma jiro laakiin kaas NA wuxuu leeyahay halkan maadaamaan row kor ka soo bilownay haddaan hoos u soo jiidno on halkan ka bilowna caadi buu noogu shaqeynaya marka tusaale waan iigu soo celinaya idinkana si ay tusaale idinku noqdo equal to isla hortoodaan ku shaqeynaya equal to VLOOKUP yaan leenahay VLOOKUP baan leenahay ID baan haysanaa ID-ga ku baadh baan odhanaynaa kadib waan wada dooranaynaa table-ka xagee baan kaga soo qaadaa buu saasaan wada dooranaa koomaan leenahay adresska maxaa la yidhahdaa xuseen cali oo kale ii baadh baan leenahay adresska misuu ku jiraa waa tirsanaysaa 1 2 3 4 rowga afraad maxaa la column-ka afraad buu ku jiraa ayaad leedahay column-kaad 4 baad qoraysaan eber ayaad ku qoraysaan kadib enter ayaad leedihiin kadib wuxuu nii shaqeynayaa mid walba adresskiisi iyo si sahlan halkan ugu helaysaan bay ka dhiganta adresskiisi halkan waad geysan karaysaa mid walba adresskiisi marka formulaan ayaa lagu shaqeeyay bay ka dhigan tahay qaab kalaad haddana idinku tusaya isla sidana haddaad ID-yadan laydin siiyey datahana lagu siiyey si hadda kadib uuba kuu dhibin formulaad sii samaysanaysa equal to baad leedihiin tusaale VLOOKUP ayaad odhanaysaa amabase halkan kalaan ku qoranayna pagekan kalaan ku qoranayna imika tusaale waxaana na siiyeyba kasoo qaad ID-yaashan baana na siiyey ID-yaasha markana na siiyey halkan aan dhiganayna equal to baan leenahay markaas VLOOKUP ID-gana na siiyey table-ka ka soo qaad buu ku odhanayaa waxaa la yidhaahdaa magaca ayuu noo soo qaadayaa intan kale eber baan ka dhiganaa magacuu noo soo qaadayaa haddana equal to yaan leenahay VLOOKUP ayaan leenahay ID-gan haddana dooranaynaa ID-ga waa kaan wax ku baadhayna mar walba waa maadaamaan isaga haysan waan wada dooranaynaa haddana minshaarka noo soo qaad baan leenahay minshaarkaas 3 buu ku jiraa maadaama 3 ku jiraan 3 baad dooranaysaan markaad equal to baad leedihiin VLOOKUP baad haddana odhanaysaan double click baad leedihiin mar walba waxaad dooranaysaan kaad haysataan oo ID-ga enter ayaad leedihiin maxaa la yidhahdaa kooma ayaad leedihiin wuxuu leeyahay table-keen kaaga soo qaada table-kan iga soo qaadayaan leeyahay markaas ka afraad waxa weeyaan adress baa noo yaallo adresska ii soo qaad baan leenahay
enter ayaan leenahay. Imika xogtan saas wuxuu noo shaqeeyay ka dhigan tahay qofka ugu horeeya inuu shaqeeyay ka dhigan tahay, kan ugu horeeya inuu shaqeeyay ka dhigan tahay, kan ugu horeeya iyo noo shaqeeyay ayay ka dhigan tahay. Imika markaas hoos ayaa soo jeedisa na buu niisoo qorayaa, na ayuu dhammaan niisoo qorayaa. muxuuna na usoo qoray haduu daataan xogtan idgaad haysataa waad shaqaysatay iminka intii oo kale oo dhan. kan koowaad uu kuu shaqeeyay, kuwa kalena si uu kugu shaqeeyay iminka tusaale idgan haddaan soo qaadano halkan koobi ku nidhaano xogtan buu noo soo qaaday halkan taal. si sahlan iyaad u shaqaynaysaa bay ka dhigan xogtan iyuu noo soo qaaday halkan baad imanaysaan paste baad ku leedihiin isagaa kuu shaqaynaya mid walba xogtiisa markaad paste ku tidhaahdid isagaa kuu shaqeynaya. marka haddana tusaale 45 70 45 70 yaa wata baad leedahay wuu kuu soo qaadanaya mid walba xogtiisi. haddaad sidan soo wada qaadatid aad idiyada haysato oo dhan soo wada qaadatidna sidoo kale uu kuu shaqaynaya paste markaad tidhahdid mid walba wuxuu kuu shaqaynayaa maxaa la idhahdaa magaciisa oo saddexan mishaarkiisii iyo halkii uu joogay isagoo formula hadda kadib uma baahnid bay ka dhigantay. marka tusaale sidan markaan formulaha mar u diyaarsatid marka lagu yidhahdo hebel iisoo saar maxaa la idhahdaa adresskiisii hebel idgiisa imisuu ahaa waad weydiinaysaa kadib idga markaad weydiiso kadib halkan unbaad idga gelinaysaa isagaa xogtii soo saarayba xogta isagaa uu kuu soo saaray xogtiisa oo dhammaystir. inaa fahamteen baan u malaynaya asxaabteeda qaaliga khayr iyo wanaag baan idiin rajaynaya goob walba goor walba aad joogtaan. markaas waxaan rajaynayaa in barnaamijkan aad ka bogateen markaas si aad barnaamijkan qaybihiisa kale la socdaan fadlan soo follow gareeya aad mahadsantiin dhammaantiin.